socotee yaa Rabadaan, mar kalena soo noqo yaa Rabadaan. Caruurey Ilaahay waxaynu ka baryaynaa Rabadaankan Rabadaankiisa inuu inagu gaadhsiiyo farxad, caafimaad, nabad iyo barwaaqo. Kullu caam wa antum bikheer. Caruurey bishii Rabadaan waxba kama hadhin, waa dhammaanaysaa, ciidina waa soo gelaysaa. Dhammaanteen waynu u xiisaynaa bisha Rabadaan, sidaas oo tahayna waynu ku faraxsannahay inay soo gelayso ciida Rabadaan. Alle nabadqab ha inagu gaadhsiiyo ciida Rabadaan. Caruurey ciida Rabadaan waa waalikii u horeeya bisha Shawaal. Markay culammadu arkaan bisha Shawaal ayay dhahaan maanta waa ciid. Bisha Rabadaan marmar waxay ku dhammaataa 29, marmarna waxay ku dhammaataa 30. Maalinka ciida waa maalin farxadeed, dhammaan muslimiintu way farxaan waana isku hambalyeeyaan. Caruurey waxyaabaha la sameeyo maalinka ciida waxaa ka mid ah in sakada la bixiyo. Dadka masaakiinta ah ee waxba haysanin ayaa la siiyaa sakada. Caruurey sunnada waxaa ka mid ah maalinka ciida in la qubaysto, dhar nadiif ahna la xidho, ama dhar cusub qofkii helaya inuu xidho, iyo in udgoon la iska dhigo, iyo in la cuno timir. Muslimiinta oo dhan, caruurta, dumarka, ragga, waxay tagaan masaajidka si ay u soo tukadaan salaada ciida. Caruurey caafimaadku ciida khayr fara badan ayaa idiin rajaynayaa. Maasha Allah caruurey, Allahumma baarik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. مرحبا بالليل فانا ألفي ترحبه وحيه، مرحبا بالعيد يا أنا يا حلاها.